بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan Soomaali maxamed meel walba joogaan. waxa halkaa inooga sii socon doona insha Allah gabayadii diiniga ahaa ee taxanaha. waxa gabayga maanta la yiraahdaa qofka wanaagsan iyo qofka xun, wuxuuna ka hadlayaa isbarbardhigga qofka wanaagsan iyo qofka xun, wuxuuna ku bilaamayaa insha Allah sidan: qof xun ha ka filan inuu ku wanaajiyo, qof wanaagsanna ha ka filan inuu ku xumeeyo. aadamuhu waa laba mid xun iyo mid wanaagsan. akhlaaqda iyo asluubta, anshaxa iyo edebta iyo xishoodka waxa iska leh qofka akhyaarta. xumaanta, asaqa, anfariirka iyo amakaaga waxa iska leh qofka xun. waxa qofka dhab ahaantii idil soo saaraa waa wakhtiga adage. aminta qofka dhib abaarto waxa faydma wuxuu yahay. inta nabadda lagu jiro, ashkhaaska afka dheer laga fadhiisan waayo alaaba. kolka colaad timaado, ayaamaha dhiisha wadata, isaga wax ka fulaynimo badan ma jiro aasaagiye. ruuxa kolka ammaan lagu jiro, afgaaban waa ka ayaamaha dagaalka u adkaysi badane. insaanka ifka jooga maanta ma uursama, qalbigoodu ma iftiimo, waa wada arxan darayaal. qofka xun ha ka filan inuu ku wanaajiyo, qof wanaagsanna ha ka filan inuu ku xumeeyo. waad mahadsantiin dhammaantiin. waxaan leeyahay adduunyada inta joogtaa waa qof xun iyo qof wanaagsan insha Allah walaalayaal. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.